odayaal dhalinyaro haween iyo waxgarad kala duwan oo ka soo jeeda Somaliland ayaa waxay casho sharaf habeennimadii xalay ahayd ugu sameeyeen magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland gudoomiyaha xisbiga u codin Injineer Faysal Cali Waraabe casho sharaftana oo ujeedadeedu ahayd si la iskugu xog wareysan lahaa jaaliyada iyo gudoomiyuhu ayaa waxay u dhacday sida tan iyo guud ahaan jaaliyada reer Somaliland ee Finland ku dhaqan dhamaantayo anigu magacooda ku hadlayo waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow bulshadaadii iyo jaaliyadaadii bacad runtii aad baan ugu faraxsanahay ka shakhsi ahaan inaynu caawa inteena ilaahay halkan u qadaray iskugu timi ka timi Somaliland Association in Finland dadkiisa ku nool inaynu la kulanno halkan waanu casharafta ka soo qayb galno waan isku xog wareysano gudoomiyaha xisbiga Muciid Injineer Faysal Cali Waraabe dan qaran laga tashaday talooyin oo sidii ay jiilada ay laanta taaganahay midnimo looga bixino danta qaranka danta xisbiga danta reerka danta shakhsiga in la dhigaa wadaninka caruurtii loo qaroobay waxaana horiyaa anaba badan bayna horiyaa u baahan midnimo laga baxan isku fiiq iyo iscanaana wax kala sheeg waqtigeeda ma jiro arrintan asaas ma ahaysaysaas wanaagsan tawaad keenta wixii waxa la Xasan Mataan telefishinka qaranka Somaliland Helsinki Finland